maanta taariikhda 29 December 2018 isagoo ka xun dagaalada ka socda deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo dagaal ka socda ka xandaara ee gobolka Galgaduud isagoo xoojinaya nabadgelyada iyo wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed meel kasta ee deegaan waxa uu u baaqayaa beeraha walaalaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya deegaanada kor ka xusan ee ka xandaara iyo deegaanada hoostaga Maxaas inay joojiyaan colaadda ka dhex taagan kuna wada noolaadaan nabadgelyo iyo kalsoonaan iyaga oo dhowraya xeerarka iyo faritaanka diinta Islaamka waxaa ku baaqayaa mas'uuliyiinta cuqaasha odayaasha dhaqanka culimada diinka ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug in si degdeg ah u farageliyaan dagaaladaas si loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay deegaanada kor ku xusan taas oo sababtay dhimasho iyo barakac iyo burbur hantiyeed wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxaa lagu wargelinayaa inay ka shaqeeyaan sidii loo soo jeedaa colaadda ka socota deegaanada kor ku xusan wabilaahi tawfiiq wa mahadsan adigoo mahadsantaada colaaddan soo cusboonaatay u dhaxaysa labada beelood ee deegaanadaas magaalada Maxaas ka xandaara nabadeed aad dirtay ma idin qorshaysan inaad guddi nabadeed iskaadhigaysaan maadaama golaha dhaqanka Soomaaliya loo xamaamay goboleedyada aad ay u mahadsantahay wasaaradaha hadda aan sheegnay ayaa hadda ugu farayna arrinkaasi ay ka qayb qaataan guddiyada ku shuqul badan ayaga uga shaqaysan doona